السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر وو هالكن وهيسي channel بريان وحا برا بلشدا سومالي دا سيدا فيسبوك آد ودحيا عي مقالة دا عنايا أي حا المقالة أو طبعا داليي موجودة مرن iyo isqabqabsi u dhaxay laba qayb oo kamid ah bulshada qaybna ay raacsan tahay oo ay taageersan tahay cunista ay una aragto wax faa'iido leh halka ay jirto qayb kamid ah bulshada oo aragta cunista ay wax aan lahayn wax faa'iido ah lagana maarmi karo haddaba haddii aad tahay qolada dambe ee ka soo horjeeda cunistiisa fadlan daawo muuqaalkan ilaa iyo dhamaadka waxa laga yaabaa inaad fikradaada wax ka bedesho halkan kuma soo gudbinayo aniga fikradeyda iyo waxaan aaminsanahay shakhsiyan waxaan ku soo gudbinayaa waxyaabo cilmi ah oo daliil leh oo ah itus oo taabsi adna aad dib u tixraaci karto haddii aad u baahato insha Allah marka daawasho wacan marka aan rabo inaan ka hadlo cunista ayaha waxaan u kala qaadi doonaa ilaa iyo laba qayb qaybta koowaad oo ah diinta islaamku maxay ka qabtaa oo ah qaybta muhiimka ah iyo qaybta labaad oo ah faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay jirka bini'aadamka cunista ayaha ee ilaa ay hadda la xaqiijiyay haddii aan ka hormarno qaybta hore haddii aad ogtahay iyo haddii kaleba ayahu wuxuu ka mid yahay ciidamada ilaahay sida uu ilaahay ku sheegay suuratul acraaf aayadda 133 qowluhu tacaala فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد markuu ilaahay ka hadlayay waxyaabihii lagu saliday fircawn waxa kamid ahaa ayaha sida darteed waxa uu kamid yahay ciidamada ilaahay haddaba waa maxay xukunka oo islaamku ka qabo cunista ayaha mowqifka uu ka taagan yahay islaamku cunista ayaha ayaa ah in islaamku noo xalaaleeyay cunistiisa sida ku timi xadiidka lafdigiisu yahay وحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان السمك والجراد هذا حتى اسكدا في سجو نوله هدي أدهشو أي حاجة سجو ميد يلقوا قليهاي إن هذا عنتو هالكس حكايات إن الدين تنوب الناسي هذا ما قراني واحد دين تنوب الناسي واحد عن سوق خبصانين إن أنا أقول لك أنا كله oo ah faa'iidooyinka caafimaad ee ku jira cunista ayaha ee ilaa ay hadda la xaqiijiyay ee qoran adna aad dib u baaran karto horta xabadda yar ee ayaha ah jirkeeda waxaa ku kaydsan waxyaabo fara badan oo faa'iido u leh jirka bini'aadamka 60% jirkeeda waa borotiin halka 16% ay tahay fats ama dufan waxaa kaloo ku jira maadooyin asaasi u ah oo aad muhiim u ah qaybaha kala duwan ee jirka bini'aadamka oo ay ka mid yihiin manganese magnesium potassium iyo calcium haddii aan imaano dhanka faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay waxa uu dardar geliyaa hab wareegga dhiigga sidoo kale wuxuu ka qayb qaataa korinta carruurta waa il dabiici ah oo laga helo tabarta ama energy-ga sidoo kale waxa uu kordhiyaa difaaca jirka wuxuu daawo u yahay cudurro ay ka mid yihiin rheumatism-ka dhabar xanuunka infectionada sida infectionka kaadida ku dhaca haddaba dhibaato ma leedahay cunista ayaha ilaa hadda wax dhibaato ah oo la xaqiijiyay oo leedahay cunista ayahu ma jirto kaliya waxa dhibaatada keena waxa jira dawladaha qaar oo sun ku buufiya si loo dabar jaro loogana hortago dhibaatada uu leeyahay ayahu marka waxa dhacda in suntaasi ay ku kaydsanto jirka ayaha aysan dilin kadibna markii qofkii uu cuno ay suntaas u gudubto jirkii qofkii cunay sidaasna qofku ku samoobo marka mararkaas oo kale waa laga yaabaa inuu dhibaato keeno balse isaga laf ahaantiisu dhibaato ma leh dhibaato iska dhaaf wuxuu leeyahay faa'iidooyinkaas faraha badan ee aan ka soo hadalnay haddaba cunista ayahu waa ku dawo waana ku dacaamo ee ha u daymo la'aan ugu dambeyn waxaan rajaynayaa inaad ka heshay fadlan la sii wadaag asxaabtaada
haddii aad nagu cusub tahayna fadlan kusoo biir channelkeena oo subscribe saar lana soco muuqaaladeena dambe insha allah waa mahadsantahay